كم ورحمة الله وبركاته أصحاب تسول وهذا ولكن أبو كرع والي إبرداري عافمت بدير رجاليا وشاكدي قرنيقة وقبقبدي ومحكمتي وكونكلوشنكي وفاينل ريماركس ماشي وبوينتياد وقدام بي نمبنين انتو كاسترايكرسية نمبنين انتو كعدكرسية نمبنين انتو كاكسبيرينسي بدين نمبنين انتو باورفول سبيكر كياي maantaasoo kale baa looyariintu xirfadooda iyo wax allaala waxay barteen iyo sheekada siday u dhisayaan maalinkaas waa killer looyarka wiilka Soomaaliga u doodayna striker aan caadi ahayn buu ahaa sheekadiisa wuxuu ku bilaabay ladies and gentlemen markaan dhageystay buu yiri hadalkii gabagabada my friend my colleague lawyer kalu sheegay wuxuu yiri waan jariiro cooday because anaguba aabaan ahay anaguba gabaraan dhalaa jirta waxaan dareemay yani imagine haday gabadhaas gabadhayda ahaan shucuur dhiig baa ikaray laakiin waxaan isku xakameeyay buu yiri xaqiiqdan ogahay anagu marka waxaan idin ka codsanayaa waalidiin baatiin emotionkiina iyo dareenkiina iyo wadaninimadiina iyo suumi iyo Soomaaliyeed iyo yeysan idin qaadin dalkani waxa uu great ku yahay waxa uu horumar ku yahay waxa uu nabad ku yahay justice cadaalad it doesn't matter colorka uu yahay it doesn't matter muslimnimadiisa it doesn't matter dhowr mar buu lawyerkan si dadban ugu yiri ilaahay baa saas yiri ninkan waa muslim wuxuu muujinayaa fariimu diraya ninkan in baadiya oo qalaad yahay laakiin in finish justice xaqiiqda wax walba qiyamkeena iyo taariikhdeena iyo jiritaankeena waxa aan ummad ku nahay ma aha inaan eegno color qofkan yahay diinta uu aamino waxa uu falay aan ku xukunno waxa uu sameeyay aan ku xukunno waxa uu san sameeyna yaan korka laga saarin ladies and gentlemen waan idin xasuusinayaa buu yiri inaad akhriseen baa laga yaabaa waa book filmna waa laga sameeyay someone has to die baa la dhahaa aniga laftigaygu filimkaas markaan maalinkaas maxkamadda ka maqlay kadib baan raadiyoon daawaday waa taariikh hore oo Faransiis ka dhacday nin boqora oo powerful ah baa wiilkiisii yaraa la dilay wax dilayna waa la waayay boqorkii wuxuu yiri ma la waayay ha soo qabta qof ku xukuma someone has to die awoodayda iyo karaamadayda iyo xukunkayga dhan baa la oranayaa war ma ninka wiilkiisii cidda dilay heli waayay marka someone ii soo qabta evidence beena korka ka saara wuu dilay dhaha publica hala keena hala toogto ummadda hala qanciyo sheekada ninkan waxay ku socotaa buu yiri someone has to die because Finland waa xanaaqsan tahay waad aragteen biiriyo barnaamijka waxa ka baxaya waad aragteen waxa joornaalada ku qoran kill xira laakiin jury waxaad ku tihiin buu yiri waxa la idin soo select gareeyay intelligentigiin garaadkiin sincere daacadnimadiina shucuurta iyo wadaniyada iyo huhaada iyo saxaafadda iyo saaxiibkay lawyerka kale sheegaya oo ah nin xirfadda dadka sida loo kala kacsado calanka Finland Suomi yaqaana yisin qaadin buu yiri please runta follow gareeya runtu iyada idin tilmaami doonta ninkan cid dilay sida aad statementigiisa ku aragteen ninka kan taalo miyaskiisa cidda guriga la degan cidda jaamacadda cidda wali cid uu dharbaaxay lama hayo he is not a violent man ninka kan aad arkaysaan 5 o'clock buu ka soo baxay the first question oo isweydiinayo oo ninkan ay dhahayay halkaas uu ka soo baxay halkaas uu soo aaday why I will tell you why we 5 o'clock buu gurigiisa ka baxay
baskaasuu raacday 45 minutes bay qaadatay wakaasaa baska markuu kaarka saaray waa kan xilligii uu basku fuulay baska arrival timekiisii bas stopkaas u gaaray waa xilliga kan 3 minutes kuma qaadan jidka unbuu gooyey phone box meeshaas ku yaalluu galay wuxuu wacay number Soomaaliya 25247983 qol ma ka hagsan u hagsan nolla numberkii uu kor u tagay yaa noo sheegay numberkaas inuu wacay shirkadda taleefanada Finland yaa noo sheegay markii hore asaga ayaa yiri halkaas waxaan u aaday taleefan raqiiska uu sheegay waa maxay taleefanka coins baa lagu shubaa coinskaas markay buuxsamaan coins badan ma qaato hal xabaad ku shubi jaq buu oranaya wuu isxirayaa halkaas marki baad caawa dhow ku daldalmaysa dad sababta uu cheaper telephone uu aaday halkaas saas ah numberka uu wacay oo BT-du noo soo sheegtay from xilligaas 817 buu callkaas sameeyay ilaa 840 wuxuu hadlayay ilaa 842 wakaas halkaas ku qoran numberkan inuu wacayna phone bookgiisa ku qoranta waagaas taleefanka marka mobile lagu xareysaa ma jiro phone book yar baa la qaadan jiray wakaas police stationka markii la yiri halka maxaa ka doonta taleefan baa wacay taleefanka wacday waa kan numberkii aad wacad ma haysaa waa kan statementigiisa ku qoranta numberkii uu statementigiisa ku bixiyay iyo numberka shirkaddu ayaa u markhaati furtay xilligaas in numberkaas uu la wacay 842 markuu ka soo baxay oo uu banaanka u soo baxay xilliga ambalaaska la wacay waa xilligaas maxaa u dhaxeeya 9 minutes do you think idinku aqligiina fiirinaya qof iska caadiya dan lahaa familkiisa la hadlayay qorshe kale aan wadan inta ka soo dogo gabar meesha iska ku buudo dilo the only person oo arkay gabadhaas ninka dilay waa ninkii injineerka shirkadda Nokia u shaqeynayay oo aan idin sheegay oo idin hor yimid oo cadeeyay lawyerka gabadhu ma arkin gabadha ninka dilay anigu ma arkin idinku ma inaan arkin only person arkay waa ninkaas the perfect witness ninkii mas'uulka ah shirkadda Nokia ka shaqeeyay indhihiisu fiicnaayeen qalbigiisu degan yahay ninka gabadha caawi ninka ambalaaska wacay ladies and gentlemen haddaan cid dhegaysanayno waa inaan ninkaas markhaatigaas waa inaan dhegaysanaa wuxuu ku hadlay muxuu yiri nin dheer oo caataa saaxiibkay wuxuu cayaaray game la yiraahdo close your eyes aniguna waa la cayaarayaa ee waxaan idinka codsanayaa inaad idinkuna indhaha isku qabataan waa markaygii please close your eyes war idinka laftigiin close your eyes wuxuu yiri waxaad eegtay marka indhaha markay isku xirteen buu inta ninkii Soomaaliga ahaa jaakada iska bixiyo hortooda istaag indhaha isku hayaan marka iyagu wax hortaagan ma oga asagoo waliba xabsiga inta ku sii cayilay waana nin gaaban aniga waxaan noqonayaa nin dheer oo bala ah waa nin gaaban si kala kuma garatid ya ka kanos miyahay nin adoo gaaban oo isku jiro ah tu jaakadii laga siibay baa la hor istaag hortooda saa u taagno afkaagana hayso indhaha isku hayaan marka so ladies and gentlemen listen to this nin dheer oo caataa oo gooba leh qalbigiina ka sawirta can you see him imagine suu ekaan karo nin dheer oo caataa oo gooba leh can you see him ma u jeedaan ninkaas aad arkaysaan ma u jeedaan oo dheer soo ma jeedaan waxaan idinka codsanayaa hadda indhihiina kala furo saa markay u kala furo mise ninkaana hortaagan now ninkii aad arkayseen oo aad qalbigiina ka sawirteen oo markhaatigu sheegay waa ninkii gabadha dilay waa ninkii cararay
for the sake of God qalbigiina idinkoo raacaya ilaahay baa idinku dhaarshiyey miyuu idin hor taagan yahay ninkaasi ma asagii baa ninka idin hor taagan ninkii aad haddeer qalbigiina sawirkiisa ka arkayseen iyo ninkaan idin hor taagan ilaahay baa idinku dhaarshiyey isu fiiriyey muxuu yiri markhaatigu markaan weydiiyey ninkuma ninkiibaa ninka dheer oo caataha oo gaabaha ma taagan ma ku hor taagan yahay markaan idhi muxuu yiri ninku ninkaan arkay ma aha idinka laftigiina juuriga ninka aad hadda qalbigiina ka aragteen oo aad sawirateen oo aad u jeedeen markaad indhaha isku hayseen ninkaan idin hor taagan ma aha because ninkaani ma dheera caata ma aha gooba ma laha waa nooca loo yaqaano luhud iyo lihaba finishku waa isku caayaan nin gaaban oo buuran very simple hadduu ninkaasoo kale ordi lahaana descriptionka la siinayo simple wuxuu noqon lahaa nin gaaban oo buuran baa halkan ka cararay there is no way qofkii arkay intuu arkay ninkan uu oran lahaa nin dheer oo caataa oo gooba leh adigu ma oran lahayd buu yiri haddii lagu dhaho ninkaana orod hadda wakaa ku hormaree hadda haddaan ku dhaho ninkan waa noocee maxaad oran lahayd what did you say to him hadda wuu idin hor taagan yahay ninkan maxaad ku tilmaami lahayd waxaad ku tilmaami lahaydeen nin gaaban oo buuran laakiin ninkaasi muxuu ku tilmaamay nin dheer oo caataa oo gooba leh ma joogo ninkaas dheer oo caatada oo goobada leh waa khatar waa danger magaaladu ku jira duurku maraya laga yaabo gabadha soo socota inuu bisha soo socota dilayo waxaa idinka bareeyaa oo idinku boorinaya carruurta Finland u heliya oo tuulo u heliya tuulo qabrigii ku jirtaa mana rabto ninkii ugu dambeeyo caawinayay in xabsi la geliyo ma rabto raalli kama aha tuulo ma kala jeclo ninkan inuu madow yahay in kale tuulo waxay rabtaa justice waxay rabtaa xaq waxay rabtaa ninkii dilay in loo aaro not ninkii caawiyey oo dhabteeda saaray iska sii daaya ninkan miskiinka oo muslimka oo madow oo magaalo dhan u gariirayso hala qalo hala laafa lagu rido yaanan dareenka iyo shucuubta iyo xanaaqa iyo emotionka iyo dareenka yuusan na wada qaadinin xaqa iyo justiceka iyo finish justice system aan u hiilino oo aan helno ninkii saxda ahaa oo gabadhan dilay this is marka aan noqon karno dad proud ah this is marka taariikhdu xusi doonto go'aankii khatarta ahaa oo aan ku siganay inaan qaato laakiin aan ka joognay because we are very intelligent people or raaca the truth they follow evidence jidka not dareenka waxaan idinka baryayaa idinku boorinayaa inaad noqotaan kuwaas yes I agree with him saaxiibkay waan ku raacsanahay taariikhdu wax badan way qori doontaa kiiskan taariikhdu waxay qori doontaa oo kale juurigii maalinkaas joogay inay u hiliyeen gabadhaas iyo in kale I hope inaad noqotaan kuwa taariikhda ka gala beejka saxda kuwa justiceka saxda sameeya kuwa iska sii daaya aabahan carruurtiisii aan arag oo dhiban oo caaw wax inta islaha abaalkiisii sidaan laga dhigay aad iyo aad baad mahadsantiin looyarka iyagiina halkaas ku soo gabagabiyey waxaa noo sii haray qaybo kale oo badan channelka subscribe gareeyo gambaleelka furta si ay sheekada ugu soo dhacdo asxaabta kalena la wadaaga waxaa soo haray decisionkii waxaa soo haray qayb la yiraahdo qof ninkan insanity the reason of insanity waxaa soo hartay tarxiilkii waxaa soo hartay go'aankii waxaa soo hartay kiis kale oo uu sii galay mar raba inaan kusii dheeraado laakiin yaa ku xirrow sheekadu waa socotaa final faraka qadna salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu channelkana ku xirma salaamu calaykum